Valentine's Day maalinta jacaylka maxaad ka ogtahay xaqiiqada maalintan Valentine Day maxaa laga wadaa Valentine waa nin magicii waxaana uu ahaa nin qays ah kaas oo noolaa qarnigii 3aad ee miilaadiga waxaa la dilay 14 bishii 2 ee Febraayo markii ay taariikhdu ahayd sababta loo dilayna waxaa lagu sheegaa inay ahayd inuu faraxumeeyay ama uu ka sinaystay gabar u dhalay boqorkii Roomaanka sababtoo ah dagaal ay ku jireen oo waxaa la diidayay in ragga askarta ay ku mashquulaan reerahooda kadib kuwii Kirishtaanka ahaa maalintaasi qays laga dilay ciid ayay ka dhigteen oo waa ay xusi jireen sanad walba haddana magacii ayay inoo bedeleen si ay noo qaldaan maalinta jacaylka waa taa meesha ay salka ku hayso waxa aan leenahay maalinta jacaylka diinteenu ma inoo ogashahay inaan ciidaha gaalada u dabaaldegno jawaabta oo kooban waa maya maxaa u daliil ah kow quraanka Allah subhanahu wa ta'ala marka uu tilmaamay adoomadiisa wanaagsan ee cibaadurrahmaanka wuxuu ka mid yeelay tilmaamahooda kuwa aan u dabaaldegin ciida gaalada wuxuu ku yiri Alla weyne subhanahu wa ta'ala suuratu furqaan aayada 72 والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما adoomaha rahmaanku waa kuwa aan goobjoog ka noqon zuurka markay laqwi maraan dhaafa iyagoo sharaf leh Abu Aliya Daawus Muhammad bin Sirin Dahaak Rabi' ibn Anas iyo mufassiriin kaleba waxa ay ku macneeyeen zuurka in uu yahay ciida gaalada fi suurati Maa'ida aayada 47 alle waxa uu ku yiri likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja waxaan u yeelnay qolo kasta oo idin kamid ah wado iyo waxay ku dhaqmaan labo axaadiistii nabiga sallallahu alayhi wasallam markii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisa ay u hijroodeen Madiina ayay arkeen reer ansaareed oo dabaaldegaya waa la weydiiyay waxaana ay dhaheen waa ciid aan u dabaaldegi jirnay xilligii jaahiliga kadib waa uu diiday nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaana uu ku yiri Allah ayaa idinku bedelay laba ka qeyr badan ciida Arafo iyo ciida Soon haduu nabiga sallallahu alayhi wasallam ansaar u diiday dabaaldega ay awooyaashood ka soo gaareen bal ka waran ciid gaala laga soo gaaray lagana keenay asalkeeda saddex culimada islaamka wuxuu yiri Sheikhul Islaam bin Taymiyah Allah u naxariistay ciiduhu waa waxyaabaha ay sharciyada iyo diimuhu ku kala duwan yihiin sida awgeed ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam yiri qolo kasta ciid ayay leedahay annagana waa tan ciidaheenu waa ciida Arafo iyo tan Soon marka isweydii adiga ma ciidoodii oo ay maalinta jacaylka ula baxeen ayaan u dabaaldegaynaa diinteenu inaan dar Ilaahay mar walba isku jeclaano ayay ina faraysaa nabigeena nabadgelyada naxariis korkiisa aatee ayaana inoo sheegay waxaan isku jeclaanayno waana faafinta salaanta jacaylka aan xabiibkeena nabadgelyada naxariis korkiisa aatee jecelnahay kan aan asxaabtiisa jecelnahay kan ay luqeyrka aan jecelnahay miyaanu nagu filnayn nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam u fiirso dhaqankiisa marka uu biyaha cabayo waxa uu jeclaa inuu ku cabo weelka ay Aisha radiyallahu anhu ku cabtay waliba dhinaca ay ka cabtay Allah weyne jacaylkee ka weyn markii uu sii dhimanay xabiibkeena nabadgelyada naxariis korkiisa aatee cadaygii ay Aisha u budlisay una hagaajisay ayuu ku cadayaday wuxuuna ku nafbaxay laabteeda waxaan haysanaa diin dhameystiran ee yaanan gaalada isku ekeysiin qofkii qolo isku ekeysiya iyaga buu ka mid yahay